waxaa maalintii labaad si habsamil u socda wadatashiga qaran ee habmaamuuska IGAD ee isku socodka xorta ah iyo deganaanshaha 8 dal ee Geeska Afrika oo dawladda Soomaaliya ay qaybta ka tahay taasoo kor u qaadaysa isdhexgalka gobolka iyo iskaashiga horumarka madashan oo ah mid lagu doonayo in muwaadiniinta dalalka urgoboleedka IGAD lagu fududeeyo sidii isku gudbi lahaayeen ayaa shalay waxa furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya waxaana falaqeynta maanta goobjoog ahaa madaxda IGAD xafiiskooda Soomaaliya xildhibaano kamid ah guddiga labada aqal ee baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dibadda iyo hay'adda socday dawladda Soomaaliya waxaana si weyn isku raacay inay muhiim tahay fududeynta socdaalka wadamada IGAD si bulshooyinka dalalka u dhashay isku gudbaan si fudud Master Kasimbo oo kamid ah khubarada urgoboleedka IGAD u qaabilsan dhanka socdaalka ayaana ka warbixiyay falaqeynta maalintii labaad iyo sida u socdo habmaamuuska IGAD ee looga hadlayo isku socodka xorta ah. Thank you. My name is Japheth Kasimbo. I'm an IGAD expert on migration and transhumance. I'm also a program officer for this program. We are here because it's a very important time for Somalia. Yesterday, Somalia signed the protocol on the free movement of persons in the IGAD region. Somalia is a very important country as a founding member of the IGAD, and therefore this protocol is very important for this country. Today, for the 2 days, today and tomorrow, we are here to discuss with the policy actors, the members of parliament, the key experts of the ministries on the ratification process of this protocol and the domestication of the same. The ratification means that Somalia needs to ratify the protocol even after signing, but also there will be a process of making it a workable document through the policies and the laws of maalinta Brita ayaa la filayaa in la soo xiro waxaana la filayaa in doodda biri ay noqoto mid weyn waxaana ka soo qayb gali doona mas'uuliin ka socda wasaaradda arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale sharciyaqaano ujeedka ayaana ah in dalalka 8 ah ee ku midaysan urgoboleedka IGAD oo dalkana Soomaaliya qaybta ka yahay ay si fudud isku gudbaan muwaadiniintoodu Hanad Maxamed Karaama warbaahinta qaranka.